Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaan waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. Bacda salaan waxaan ka hadlayaa maxay ahaydee dagaaladan Puntland ka socda. Dagaaladan Puntland ka socda runtii maxay ahaydee ummaddan masiibada ah oo khawaarijta ah oo ku soo duushay dad iyo dal aan shaqo ku lahayn oo wadamadoodii ka yimi waa laga guulaystay. Intii hadhana waa laga guulaysanayaa insha Allah. Maalin dhow waa soo afjari doonaa. Intaa ka bacdi waxaan leeyahay dad baa tiin xaq u dagaalamaya, dad dalkiina iyo diintiina kusoo duulay iyo dadkiina oo dhalinyaradii maxay ahayd marin habaabiyey oo diinta ka khalday ummadda Islaameed. Dhalinyaro badan yacni lumiyey oo ka haystay. Marka waxaan leeyahay ummad baa tiin diintooda ku dagaalamaysa oo ka badbaadinaysa ummadda Islaameed khawaarijtaas inay wadada ka lumiyaan ama dadkooda ay laayaan dalkooda qabsadaan. Mujaahidiin baa tiin maxay ahaydee intiina dhimatay dhiigooda u bixiyey iyo intiina nool dagaalamaysaba. Waxaan leeyahay guulaysta weligii ba Ilaahay maxay ahaydee Ilaahay xaq u la jiraa. Waa guulaysanaysaan. Inta dhaawacana waxaan leeyahay intii dhimatay Ilaahay ha u naxariisto. Ilaahay jannooyinkiisa nagu baryeennaa. Inta kale dhaawacana Ilaahay caafimaad ha siiyo baan leeyahay. Caafimaad degdeg Ilaahay ha siiyo. Ilaahay u sahlo umuurahooda. Shacabka iyo maxay ahayd dowladduna ku mahadsan yihiin inay ciidanka u dagaalamayo dhiig u shubaya ay garab taagan yihiin. Sii xoojiya baan waliba leeyahay inta tabartiina ah oo ciidamada u gurmada. Maxay ahayd dayaca kale ka ilaaliya. Wixii dayac oo kale ciidamada waa laga ilaaliyaa dhinac taagnaada. Gabadha ma arkay maalin dhow halka tagay buurahaasoo maxay ahayd alaabooyin iyo wax geeyay raashin iyo hilib iyo xoolo noolba geeyay. Runtii gabdho geesiyaal bay ahaayeen. Aad iyo aad gabdho fiican oo qiimo badan bay ahaayeen. Gabdhaha kalena waxaan leeyahay ku daydeen. Waan arkaynay gabdho badan oo shaqaynaya wax walba qabanaya. Marka maxay ahaydee halka ka hayo baan leeyahay dadaalka iyo wanaaggaas. Dowladduna si fiican bay garab taagantaysaan maxay ahayd aan u aragno. Iyadana waxaan leeyahay sii xoojiya. Magaalooyinka dhexdoodana aad la isaga ilaaliyo. Khawaarijtu waxay samayn kartaa samaynaysa maadaama dagaal ku socdo. Marka waxaan leeyahay maxay ahaydee Ilaahay guuleeyo. Ilaahay si degdeg ah u soo afjaro. Weliba anigu waxaan ku talin lahaa maxay ahaydee dhinaca badda in loo furo dhulkooda ay qabtaan. Wixii carari karaya ay cararaan si aanay dhalinyarada u galaafanin. Dhalinyarada si aanay u galaafanin qaaliga ah oo dhulkooda jooga ku dagaalamaya. Waxaan oran lahaa anigu meel loo baneeyo. Dhinaca badda iyo dhulka ay ka yimaadeen wadamadoodii Carab iyo meel daran iyo Afghanistan ay ka yimaadeen. Ha qabteen baan oran lahaa loo furo. Taasina maxay ahayd waa fikradeyda. Guul baan idin rajeynayaa insha Allah bidmilaahi kariim. Waxa dagaalo dhacaya adduunka ka socda iyo masiibooyinkana Ilaahay ummadda Soomaaliyeed ka qaboojiyo dagaalada iyo bilaayinka dhacaya. Oo qabyaalada dadkan qabyaalada habeen iyo maalin taagan iyo dagaalkana Ilaahay maxay ahayd naga fariisiyo. oo shaydaan baa ku labahanay shaydaanka ku labahanay Ilaahay ka qabto. oo ummadda Islaameed Ilaahay bogooda burcad hayso mariyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.